waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah Cabdullaahi ibn Mubaarak nin caalim oo weyn oo reer Yaman ah yaa xajka soo aaday markaasuu wuxuu arkay maamo meel fadhido oo maxay tahay dameer meesha u yaala dhar suufana gashan marka maamadii uu salaamay markaas waxay ku jawaabtay salaamun qowl quraankii ku hadli jirtay gabadhan aad bay quraanka u baratay markaasuu quraanka noqon dhumin hadal laqwiina is ugu hadlin iyo quraanka isticmaali jirtay markuu salaamay wuxuu ugu jawaabtay salaamun qawlan min rabbir raxiim markaasaan u fahmay inay dhunsanto arkay markaasuu wuxuu weydiiyey xagee u socotaa oo rabtaa aan ku tusaa keligeeta safarkii ka hartay dhuntay markaasuu wuxuu ku jawaabtay subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii markaasaan fahmuu yiri inay u socoto inay xajka ka imaaday oo ay rabto baytulmaqdis inay u socoto markaasaan waxaa meeqa maalmooda halkaan joogtaan ku iru yiri markaas waxay ku tiri 3 layaalin sawiya aayad quraan haddana isticmaal 3 maalmood markaasay tiri cunto ma haysataa markaasay tiri wuxuu ku jawaabtay alladii huwa yudcimuni wa yasqin ilaahay baa cunto isiinaya waraabinaya macnaa cunto ma haysato markaasay tiri maxaad ku weyse qaadataa oo biyo ma haysataa markaasay waxay tiri fatayamamu saciidan dayiban shuf say diinta u taqaanay quraanka u taqaano ka ciidan ku booreysanaya aayad quraan ugu jawaabtay markaas tiri cunto ma rabtaa markaasay waxay tiri thumma atimu siyaama ila al-layl markaas waxay ku jawaabtay waan soomanahay camal waa soonka dhamaystir ilaa habeenkii markaas waxaan ku yiri soon hadda musaafir aan nahay soonka waan la fasaxayna aan furno markaas haddana ku jawaabtay wa anta suumu khayru lakum markaas haddana waxaan ku yiri ila hadal sidaan kuula hadlaayo maxay ahayd oo aan kuula hadlaayo igula hadal oo maxay tahay quraanka igula hadal si caadi ila hadal markaas waxay tiri maa yalfidu min qawlin ila ladayya raqibun atiib markaas antiya adiga yaa tahay u dhahay markaas tiri walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun hay weydiin waxaan ku quseen aayad quraanka markaas ina samca wal basara wal fuaada markaas haddana wuxuu ku yiri iga raali ahow waa kugu khaldamay markaas tiri laa tatriiba calaykum alyawm waxba kuuma haysto markaas tiri maxay ahayto hashaydan kuu soo qaadaan kugu xambaaraa oo muku geeya markaas tiri wamaa tafcalu min khayrin yaclamuhu llah ay ku jawaab markaas hashi u keenu dhahay meeshaan soo dhigay si aan hasha u korto markaas haddana waxay tiri yiri qul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim wayaxfaduu fi markaas indhahayga laabay hashii kortay markaas hashii xarigeeda qaaday markaas waxaan ku yiri halaki zawjun ma lagu qabanin ma leedahay markaas tiri yaa ayuha alladina aamanu laa tasalu can ashyaa intum hay weydiinay tiri waxaan ku quseyn waa ka aamusa markaa haddana hashii waan ka daba tagay tiri oo safarkii aan ka daba tagnay markaas ilmaheed u yeerta marka caruur ma leedahay dheefa markaas tiri almaalu wal banuuna ziinatu alxayaati addunya markaas ogaaday inay ilmo leedahay haddana maxay ahayd markaas ilmaha maxay xaj ka qabanayeen markaas waxay tiri wabinajmi hum yahtaduun marka waa xidiga marka macnaha waxay ahaayeen direction dadka xajka dadka tusaay ahaayeen marka u dhawaanay marka safarkii u dhawaanay iyo qaylisa marka waxay tiri wattakhadha allahu ibraahiima khaliila wa kallama allahu muusa takliima yaa yaxya khudh alkitaaba biquwa markaasaan fahmay inay 3 cunugoo wiil haysto wiilka koowaad ibraahim la dhaho kan labaad muuse la dhaho kan saddexaadna yaxya la saddex ayad isticmaashay wattakhadha allahu ibraahiima khaliila وكلم الله موسى تكليما قد يا يحيى قد الكتاب saddexdood markay imaadeen markaas waxaan saddex wiil oo dhalinyaro oo qurux badan oo diin iyo akhlaaq muuqata arkay markaas waxay ku tiri fab'athu ahadakum bi waraqakum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha aska da'aman ayada suuratul kahf badana qaateen lacagtan qaata ordo u soo cunto noo soo gada markii cuntada la soo dhigay waxay tiri kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya hadana ayad quraan ninkii martay qosaraysa markaas wixii da'amukum alayya haramun cuntadan waa iga xaraam gabadhan maxay tuu dhahay quraanka maanta ku hadlayso markaas dhan waa hooyadeen muddo 40 sano quraan bas isticmaalaysay si uusan hadal laqwi uusan uga imaanin markaas waxay yiri hadda anigana quraan ku hadlayaa yiri dalika fadlullahi yu'tihi man yasha sida xikmada qofku ilaahay doono fadliga siiya marka walaal quraanka waa marka shay maxay ahayd mucjiso ah bal sida uu isticmaalaysa fiir ereyada isticmaalaysay iyo hadalka waxa ay rabtay ilmaheeda u fahmayeen iyo sida quraanka u baratay iyo muslimiinta xataa udabada dadka adabka yaqaan la tirjaaga yaqaano sidaas oo kale ahaayeen markay madaxda u imaanayaan oo ay rabaan in la gacan maxay ahayd la dhaqaaleeyo ama la qurxiyo ayada quraan adeegsan jireen markaas maxay la sharfi jiray oo la ixtiraami jiray oo la karaameyn jiray idan quraanka qofka haysta markasta waa kariim qofka haysta markasta waa muxtaram qofka haysta markasta waa la jecel yahay qofka haysta markasta maxay ahayd waa aziis bulshada dhexdeeda ku dadaal in quraanka barato lafdan wa macnan wa xifdan macnan